cadeymo muujinaya dhibaatooyinkii uu Yuusuf Garaad u geystay Aamina Muuse balse marka hore daawadayaal halkani waa Zobe Media Group haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee barnaamijyadeena ugu yaraan 10 mar ayay ka hadashay Aamina Muuse dhibaatooyinka uu u geystay Yuusuf Garaad laakiin wali ma uusan ka jawaabin eedeymaha ay Aamina Muuse u jeedisay lama hayo meel uu ku sheegay in uusan geysan dhibaatooyinka ay sheegtay gabadhu sidoo kale lama hayo meel uu ku raali geliyay sababaha uu Yuusuf Garaad kiiskan uga gaabsaday ayaa waxa lagu macneyn karaa dhowr sababood in uu kiiskan geystay ee uusan dafiri karin ama diidi karin sababtoo ah waxa jira dadkii la shaqeynayay oo ogaa dhacdadan qaar badan oo ka mid ah oo nool taasoo keeni karta haddii uu waxba kama jiraan ku tilmaamo eedeymaha Aamina Muuse in ay sheegaan dhibaatooyinkii uu gabadhaas u geysan jiray oo ay marqaati ka noqdaan wixii ay arkayeen iyada oo dhowr mar ku celcelisay ayaa goobjoog u ahaa dhacdooyinkii igu dhacayay oo marqaati ka ah taas oo cadeynaysa in gabadhu hadalkeeda 100% uu run yahay kuwaasi oo u badan odayaal Soomaalida dhexdooda aad looga tixgeliyo waxa uu ka baqayaa haddii uu ka hadlo dhacdadan in Aamina Muuse ay keento wariyaashii la shaqeynayay oo marqaati nool ah taasoo keeni karta in Yuusuf Garaad kiiskan ku cadaado Soomaaliduna ogaato in uu kambani shisheeye ah ku canaadi jiray kuna dulmin jiray Soomaali fara badan oo halkaasi ka shaqeyn jirtay taas oo mugdi gelin karta hankiisa siyaasadeed hadda waa siyaasi doonaya in uu Soomaaliya xilal muhiim ah ka qabto kaas oo sanadii 2012 isku soo sharaxay xilka qabashada madaxweynaha Soomaaliya laakiin wax cod ah ma helin sanadii 2017 ayaa laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya laakiin bilooyin kadib ayaa si xushmad darro ah looga qaaday xilka taas oo u muuqata in wali nafsigii uu Soomaali badan ka galahayo waxay Soomaalidu ku maamaadaa fallaari gilgilasho kaaga maharto waa mahadho aan hari doonin oo inta aad nooshahay ku daba joogi doonta waxaana noqon doonta tusaale xun dan urkayga soo weydaaday waxa gaaray 8 bilood Aamino waxa ay seexan jirtay 2 maalmood oo ka mid ah maalmaha shaqada masaajid ku yaala goobta shaqada agteeda maalmaha Sabtida iyo Axadda waxa ay sheegtay in uusan tareen ka soo bixi jirin xaafadeeda laakiin haddii ay xitaa soo baxdo oo ay timaado aysan helin karin wax ay ku laabato waxay sheegtay in laga baaqsan karay in ay maalmahaas timaado oo la fasaxi karay laakiin Yuusuf Garaad uu qasab uga dhigay in ay timaado bal aan daawano Yuusuf Garaad oo ku faanaya inuu 13 sano maamulayay BBC-da taas oo ka dhigan in uu 13 sano ciqaabayay Soomaali fara badan oo halkaasi ka shaqeyn jirtay 7 ayaa la furay BBC-da sharaf ay tahay inaan caawa sheegan karo madaxii laanta Soomaaliga ee ugu waqtiga dheeraatay markii la furay inuu ariga ficilada yaab kale ee muujinaya in Yuusuf Garaad shakhsiyadiisu aad u xun tahay waxa kamid ah mar uu saxaafadda kula hadlayay gudaha garoonka Aadan Cadde marka waxaan sameyn doonaa iyaro kooban idin sheegaya intaas warka kala dhex bixi doontaan waxaan joognaa airportka ama geeyada diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde maanta waxaa halkan ka dhoofaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Raila Hada waxaa halkan ka dhoofaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna war saaxiibeel adinka firi way farti ugu soo taagtay ma kamera ay saaran marka uu sidaan jees-jeeska ah oo mutakabbirnimada ah u dhaqmayo waa mar uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya maxaad u malaynaysaa maxayse kula tahay in uu u dhaqmi jiray markii uu BBC-da madaxda ka ahaa hadiiba uu sidaan u dhaqmayo asagoo ah wasiirka arrimaha dibadda qaranka Soomaaliya هذا نحدو لي عوكي عبد السلام آمن أباي هذا الشدنا أنا وخيران لنا ما ركت ما كفير سنكرنا أنا شغلة كعقبنا بح بشارة ما بحاي بكس دام بحر
abuse kaleeta aan aada guriga igu sugaayo ma bixi kari I just cannot go home da waxaa joogaa toiletka waxaa joogaa toiletka galaa musqusha suuliga galaa muraayada isku eega muraayada la hadlaa that's where it come from saaxiibta muraayad it was me the one who was talking to the mirror qofka la hadlaayo muraayad is me it's wixii igu dhacay waay wixii aniga soo gaara waay wiilasha baxay ay dhaheen ani ma baxay because daan baxa oo guriga waqti hor tago dhibaatada baa guriga meesha ka bilaabana ilmahayga yaryar baxay qofka dhibaatooyinkan ay la ooyeyso hooyadan Soomaaliyeed u geystay waa Yuusuf Garaad Cumar kaas oo ah siyaasi kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed doonayana in uu Soomaaliya mar uun madaxweyne ka noqdo ama ra'iisul wasaare ama xil muhiim ah uu ka qabto mudarneed waxay ahayd libaaxa ah marka dadka banaanka iga maqlay because they don't know ina kamid waa dhagaysanaysan ma ogidin waxaan ku suganahay ana kamid ah dadkii ku dhagaysan aniga dhexda ka dhimanay because abuse kugu socdo ee bullying kugu socdo qofka waa in qofka fiir qofka marka shaqada laga buluusay oo gurigiisa degan yahay qofka waa noolaa karaa guriga saadi laakiin labadiiba laakiin marka gurigana laga haysto balaay ka haysto shaqadana balaay ka haysto meel aan ku sabab garoobaysa male ma fahamta emerka herna umada lana meelaha warwareego qof wuxuu u dhalatay ma ogi kamana midihi okay waxa dhacday markuu yimid haddana inaan uur yeeshay gabadha uurkeedi gabadhayda Suleyqa uurkeedi ilaahay ku caasiimaayo walaalkayga ilmaha iga dhalna ku caasiimaayo like this what happened to me halkan ay ka bilaabata marka haddaan imaado shaqada oo aan imaado Bush House booskaygii Bush House oo xilligaas muhiim ah magaciisa inaan sheego bulin ila fadhiya gurigii haddaan tagana ninkii adib ila fadhiya laakiin de booska dad kasta og meelo fara badan waa Yuusuf kaligayna maaha cid walba Yuusuf qof walba buli jiray everybody mid dhintay iyo mid noolba wuu buli karay marka taas asaga dhinac baan dhigay buug dhan baa chapter dhan oo buuga aniga noloshayda aan ka qoro aan ku saabsan oo la yiraahdo aniga iyo Yuusuf chapterkaas waxa la yiraahdaa aniga iyo Yuusuf buugayga waxa la yiraahdaa wax kastaba kaligay because waxa maray hagardaamooyin badan oo kaliga inaan la tacaal ninkii markaan keenay oo ila joogo walaalkay magac kale uu yeeshay magac kale isku dhiibay magac kale uu baxsaday anigana wadankan sharciyan ku keena isna wuu isdhiibay ha sharciyan ku keena sharci marka qofka ku keento waa sharciga raaca dan wuxuu noqday nin cusub ana ma oge as aniga waxaan ahay gabar walacna ah oo ilmo caloosheeda galeen financial difficulties iyo maaliyadii soo galaysay ku maareyn lahaydna ay adag tahay dan waxaan noqotay shaqadii haday tagtana aan arxan ku haysan arxan waxaan ku haystaa walaalaha ila shaqeeya ma Cabdisalaana ma maxato cawka Allah u naxariistay ma Yunus badana markaas wuxuu jiray Soomaaliland ma aadan nuuxdula ma maxato Saciid Cali Musa everybody waa ay arxamaya waa walaalahay waa oo Soomaalinimada ilaalinay but this guy not dan urkayga weydaaday soo weydaaday waxaa gaaray 8 bilood gabadhayda Suleyqa urkeeda ninkii guriga ii fadhiyo abuse-ka waxaa rabaa gabdhaha Soomaalida oo sheeg waa kala duwan yahay abuse-ka waxa waa physical abuse mental abuse emotional abuse and financial abuse afartaas ugu badan spiritual abuse ajirka anaga nama qosay because Soomaali ba guursanayna ningaala ma guursanayno ya spiritual abuse wuxuu imaada marka oo la sameeyo laba qof kala diimo duwan physical abuse waa jug marka geesa maarta daamanka laga jabiyo emotional abuse waa marka lagu caayo financial abuse waa marka lacagta iyo cunada aad guriga soo gashay telefoonka guriga soo gashay telefoonka la qarxiyo oo cunada maxay ahayd toona la misuse karayo oo wax walba lagu dheelo emotional abuse aan dhahaa waxa la dhahaa financial abuse maxay mental abuse waa waxa weeye marka mar walba mentality-gaaga
wax adiga ku dhibaaya marka lagu dhaho like maxay ato saana tahay oo kulligeed wax fool xun intaasaa guriga iiga socotay maalintii dambe waa baxay 8 bilood ah wiilasha ila shaqeeya hadday maanta kuwa nool dhagaysanayaan barnaamijkayga way ogyihiin wayna xasuusan doonaan way fasaxayaan kan sumeelaha oo meesha madaxda ka ah BBC waxay qabtaa sharci policy la dhahaa flexible working ilaa hadda waa jiraa sharcigaas qaasatan markaas waxaa talinaysay xisbigii Labourka wuxuu aad xil u siin jiray familieska flexible working that means waxa waa gabadha shaqaalaha ah oo UK ka shaqeyso in ay shaqeyso xilliga ay iyada shaqada ku faraxsan tahay that's what means flexible working marka flexible working asaga aniga flexible working oo aan aniga sameyn karo waxa waa in gelinka hor la igu qoro shaqada laakiin gelinka dambe la iga daayo sax but this guy oo BBC xukuumaya waxa ka ahaa wuxuu igu qasbaya inaan gelinka dambe ugu qoraya shaqada saasi soo gala waay isagu wuxuu eegaya xilliga adiga ku dhibaya because jadwalka shaqada asaa qoraayo soo ma haduuna isaga qorno secretariat qortana asaa amraay soo marka maxaa dhacaya aniga foldid ahay lugaha ka barbarsan ka waxaysan wiilasha kale waxay dhahayaan aadan nuux dhuule iyo cawke iyo cabdisalaan iyo aamin abaay adoo sidan ah anagu reeraan leenahay maaragtay ma ku fiirsan karno anaga shaqada ka qabanayna bashaara ma baxay because daan baxo abuse kale aan aad guriga igu sugaayo ma bixi kari I just cannot go home da waxaa jooga toiletka waxaa jooga toiletka gala musqush suuliga gala muraayada isku eega muraayada la hadla that's where it come from saaxiibta muraayad it was me the one who was talking to the mirror qofka la hadlayo muraayad is me it's wixii igu dhacay waay wixii aniga soo gaara waay wiilasha baxay dhaheen aniga ma baxay because daan baxo oo guriga waqti hor tago dhibaatada guriga meesha ka bilaabana ilmahayga yar waxay ahaato maalin waxa la soo abaabay ilmaha lagu badul ooyo ilmaha hadaa ku dul ooyso dhaqankii ay igu jiro wadanka ilmaha ku dul ooyo ilmaha hadaa ku dul ooyso